madaxweyne Farmaajo ayaa hub iyo gaadiid waxa uu la tagayaa magaalada Kismaayo iyadoona daraawiishta Jubbaland ay xireen dhammaan aagaga ama wadooyinka gala garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. maxaad kala socotaa xog xasaasi ah heshiiska madaxweyne Farmaajo sidoo kale Axmed Madoobe? muuqaalkan ayaa idinkugu soo gudbin doona xogo badan oo ka qarsoon. haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena subscribe inoo dhig gambaleelka furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga. haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka noo share gareey like inoo saar si uu gaaro asxaab badan. waad ku mahadsantahay daawashadaada. magaalada Kismaayo ayaa marti gelinaysa booqasho uu madaxweynihii hore Soomaaliya ahna madaxweynihii sagaalaad uu ku tagi doono magaalada Kismaayo iyadoona halkaasi uu ka socdo diyaar garowgii u dambeeyay ee lagu soo dhaweynayo madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ciidamada daraawiishta ee Jubbaland ayaa dhammaan xiray wadooyinka ugu muhiimsan ee soo gala garoonka diyaaradaha ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Kismaayo. xaaladda magaalada Kismaayo ayaa ku soo korortay hadalhayn weyn oo xoogan oo ku saabsan socdaal uu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagayo halkaasi isagoo sidoo kale wata hubkii ugu badnaa iyo sidoo kale gaadiidkii dagaal. warar soo baxayana waxay sheegayaan in xiriir hoosaad ah uu dhexmaray madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. taasi ayaa waxaa lagu tilmaamay inay suurtagelisay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hub iyo sidoo kale gaadiid uu la tago magaalada Kismaayo iyadoona madaxweynaha ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu arintaasi si aad ah u soo dhaweynayo. socdaalka madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu sifeeyay inuu yahay mid xasaasi ah isla markaana hadalhayn badan ka dhexdheliyay baraha bulshada iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Jubbaland dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo sidoo kale mucaaradkaba. waxaa la sheegay in safarka madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku wehelinayaan gaadiid ciidan hub inkastoo aysan jirin ilaa hadda war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda federaalk ee Soomaaliya sidoo kale maamulka Jubbaland balse warar hoosaad ah oo isla dhexmaraya ayaa tilmaamaya in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligan isku diyaarinayo safar ah inuu tago magaalada Kismaayo halkaasina kulamo gooni ah uu kula qaadan doono mas'uuliyiinta Jubbaland iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyagoona ka wada hadli doona qodobo aad muhiim u ah oo ku saabsan masiirka ummadda Soomaaliyeed arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale guud ahaan amniga ee Soomaaliya. haddii safarka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagayo magaalada Kismaayo uu rumoobo isla markaana uu si dhab ah uu magaalada Kismaayo gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu kala dego hub iyo gaadiid waxay arintaani mar kale khilaaf culus ay ka dhalin kartaa sida sheegayaan siyaasiyiinta maamulka Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalk ee Soomaaliya kuwaasoo xilliganba xiriirkooda uu yahay mid aanan wanaagsaneyn. horey ayay ahayd markii madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidoo kale dowladda federaalk ee Soomaaliya xiriirkoodii uu u xumaaday isla markaana markaan ay ka sii dambeyso uu sii xumaan karo maadaama Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo ogolaanayo in magaalada Kismaayo uu tago isagoo wata hub iyo gaadiid. mucaaradka ayaa sidoo kale dhankooda diidan in madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu gaaro magaalada Kismaayo iyadoo halkaasi lagu wado in bishaan dhexdeeda ay gaaraan siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa martiqaad rasmi ah waxa uu u fidiyay siyaasiyiinta mucaaradka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidoo kale madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xilligan magaalada caasimadda Muqdisho ka wada kulamo gooni ah oo uu la yeelanayo dadka caanka ka baraha bulshada siyaasiyiin iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka. sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulamada waxa uu la qaadanayaa siyaasiyiinta mucaaradka iyadoo habeen ka hor magaalada caasimadda Muqdisho uu ka dhacay kulan xasaasi ah oo u dhaxeeyay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka oo la magac baxay golaha samata bixinta Soomaaliyeed.
shirkooda ayaa diiradda lagu saarayay hanaanka loo marayo doorashada ay dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ku doonayso in dalka ay kaga dhacdo qof iyo cod, halka siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale dhankiisa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Siciid Cabdullaahi Deni iyo sidoo kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dhammaantoodaba si aad ah ay ugu soo horjeedaan hanaanka doorasho ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku wado in dalka ay kaga dhacdo doorasho qof iyo cod ah. waana sababta ugu weyn ee khilaafka ka dhexdhalisay siyaasiyiinta mucaaradka dowladda federaalk ee Soomaaliya, maamulka Puntland iyo sidoo kale maamulka Jubbaland. waxaana ilaa hadda taagan khilaafkii ay isku qabsadeen oo ah in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu xilligaani mar kale ku adkeysanayaa in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod, taas oo ahayd markii uu xilka uu qabanayay go'aankiisii ugu horeeyay amaba sidoo kale waxyaabihii lagu doortay ay ka mid ahaayeen in dalka uu ka qabanayo doorasho qof iyo cod. balse siyaasiyiinta mucaaradka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, Siciid Cabdullaahi Deni, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa guud ahaanba ka soo horjeeda in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, balse lama oga sida ay ku dambeyn doonto in dalka ay kaga dhacayso doorasho qof iyo cod ah, iyadoo xilligan ay socdaan doorashada golaha deegaanka oo xisbiga JBS uu ka wado magaalada caasimadda ee Muqdisho. shirkii lagu waday in Kismaayo uu ka furmo 10 bisha oo ku beegan maalinta bari ah ayaa gabi ahaanba fashil ku soo dhamaaday xilli khilaaf xoogan uu soo kala dhaxgalay siyaasiyiinta mucaaradka gudahooda, kuwaasi oo diidan in madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu shirkaasi uu qayb uu ka noqdo isla markaana uu la fadhiisto miiska wada hadalka. balse Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ahaa shakhsigii fariinta codsiga u diray siyaasiyiinta mucaaradka Axmed Maxamed Islaam siyaasiyiinta mucaaradka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Siciid Cabdullaahi Deni. madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qudhiisa waxa uu diyaar u yahay in shirkaasi uu ka qayb galo. siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo qayb ka ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa dhankiisa ka soo horjeeda in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu shirkaasi uu ka qayb galo. waxa uuna leeyahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame haddii uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirkaasi ka qayb galayo, gabi ahaanba aniga shirkaasi kama qayb galayo. shir ayay ku yeesheen magaalada caasimadda ee Muqdisho, balse war-saxaafadeed kama aysan soo saarin siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulankii ay ku yeesheen. balse waxaa la rajeynayaa in mar kale kulan magaalada caasimadda Muqdisho uu ku dhexmari doono siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo kulankii haween ka hor uu ka dhacay hoyga magaalada caasimadda Muqdisho uu ka degan yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxay warar ay ku soo kordhay ee la xiriira tegitaanka safarka madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee uu tagayo magaalada Kismaayo. muuqaaladeena xiga ayaa idinkugu soo gudbin doonaa. haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaray muuqaalkeena subscribe inoo dhegan balaalka furasay ku soo gaaraa muuqaalada kale xiga. haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka noo share garay, like inoo saar si uu gaaro asxaab badan. waad ku mahadsantahay daawashadaada.